السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة أقصد وهسنا قصية الكميديا قد بدل وين ما تحكيلين دولة الصومال وممنوع الظلمات وكلها الدلقة سياسيين الصومال لان ودور لياب لفكين بين عشرة الصومالية دقال كان دعا دقمة بورها كبا تنكاسي ورك عالم كنا وحاك كميدة مقالدي وكسب بلاد كورونا وحجرات لغا قاضي magacaygu waa Maslaxa Nasiib. fadlan haddana cusub tahay channelkan subscribe ina saar si aad nala wadaagto wararkeena iyo warbixinada nagu dambeysay adigoo mahadsan. haatan ku soo dhawaada warkii faahfaahsan. wasaaradda gaadiidka duulista hawada Soomaaliya ayaa shalay saacisay in maanta wixii ka dambeeya dhammaan la joojin doono duulimaadyada gudaha iskaalka la goosi jiray Muqdisho iyo gobolada kale ee dalka. qoraalka ka soo baxay wasaaradda ayaa waxaa lagu sheegay in kaliya duulimaadyada la ogol yahay diyaaradaha sida gargaarka siba kuwa sida daawooyinka iyo raashinka. sidoo kale wasaaradda ayaa inta ku dartay in weli halkiisa uu yahay amarka lagu joojinayo duulimaadyada caalamiga ah isla markaana uu sii socon doono ilaa iyo amar dambe. ugu dambeyn wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa shirkadahaasi ka shaqeeya duulimaadyada ka dalbatay inay u hoggaansamaan amarkaasi. dowladda Soomaaliya ayaa si guud u wada qorshaha ballaaran looga hortagayo caabuqa kaasoo 3 kiis oo kamid ah laga helay magaalada Muqdisho. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiyaasha xisbiyada wadani iyo wicid Cabdiraxmaan Ciro iyo Injineer Faysal Cali Waraabe ayaa maanta si wadajir ah ugu hor yimaaday dhinaca Soomaaliya. madaxweyne Muuse Biixi ayaa ugu horeyn sheegay in Somaliland ay tahay dal madax bannaan oo gaarkiisa u taagan waxaana bangiga adduunka u diray fariin ku aadan in deymaha Soomaaliya laga dhaafo aan ahayn wax u yaala Somaliland. gudoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa isaguna carabka ku adkeeyay in Somaliland iyo Soomaaliya kala yihiin laba dal oo mid waliba arrimihiisa u madax bannaan. sidoo kale gudoomiye Cabdiraxmaan Ciro ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in bangiga adduunka uu ka leexday wadadii saxda ahayd ee dunida u kala maamusho Somaliland maadaama ay tahay dal madax bannaan. ugu dambeyntii waxay si wadajir ah fariin ugu direen shacabka Somaliland midaas oo ku aadan ka hortagga caabuqa faraha ba'an ku haya dunida ee coronavirus. 4 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku dhintay iska horimaad maanta ka dhacay degmada Burhakaba ee gobolka Bay. dagaalka ayaa u dhaxeeyay ciidanka ka wada tirsan maamulka Koonfur Galbeed. dhinaca kale qarax ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada Baydhabo ee xarunta gobolkaasi. qaraxan oo ahaa mid muhiim ah dhulka lagu aasay ayaa waxaa ku geeriyooday askari ka tirsan ciidamada maamulkaasi. magaalada Wuhan ee Shiinaha oo ah halka uu markii ugu horeysay ka dilaacay cudurka ayaa bilaabay sabtidii shalay ahayd inay qaado xayiraad muddo 2 bilood ah saarneyd magaalada. waxaa dib loo bilaabay qaar ka mid ah adeegyada tareenada iyo dib u furinta xuduudaha taasoo u oggolaanaysa in xaaladdu ay caadi ku soo laabato qoysaskuna ay dib u midoobaan. maamulayaasha magaalada ayaa qaatay go'aan adag si ay u joojiyaan inay dadka ka baxaan ama galaan magaalada warshadaha ku badan yihiin ay ku nool yihiin dad ka badan 11 milyan kuna taala bartamaha Shiinaha. qoysaska ayaa lagu xanibay guryahooda iyadoo adeegyada basaskana la joojiyay waxaana la oggolaaday quraan dukaamada raashinka ay sii furnaadaan. daawadyaantaas ayaa kusoo gabagabeynaya wararkeena warkii inta ku mid ah waxaan kaga tagay sidaas iyo amaanaha Allah.